وأنا ونكسن ملكستان قد داونيسان داوديال سيدا عاد نوجا برتين بوا برنامج كني بنديك الصومالي channel أو عاد وقت كان أوكله كداوتان تيفيق عالم بجاه إيه صومالي channel داوديال نعاو وحن نصيب ويا شيء وأن كل ماي مجال هرجيسة جمهورية الصومالي لان أبوان قراءة أو أورورية سوغانتا الصوماليات آد إيا آدنا وجا جونجاري aad wada taqaanaan u baahnayn inaan iskiin baro oo qof yar iyo qof weynba uu aad u garanayo waa kuma abwaankaasi waa Yuusuf Cismaan Cabdulle Yuusuf Shaacir Yuusuf waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka bandhiga Somali Channel ma santiin waa dhawahay aad ma santiin kama hadlaynayo daawadayaal Yuusuf Shaacir idin ma cusba waxa ka daawateen meelo badan iyo TV badan waa ninku caan baxay inuu ururiyo dhaqankii dhintay soona nooleeyo waxa aad ka daawateen waxyaabo kala duwan oo dhaqanka iyo gabayga iyo taariikhdii ragii dhintay ee aasmay inuu soo nooleeyay Yuusuf Caawa waxa aan jeclahay inaan ka wareysto buug uu qoray oo uu ka qoray Salaan Carabay Salaan Maxamed Xirsi Salaan Carabay buugga waxa la yiraahdaa talow colka jooja يعني هدان ونقضي يوسف وحاد سمايسي تاريخ بدن أو دنتي إن تصور نوليسي وحاد كهذا الشيء قبيه بدن يرق بدن أو سوغان الصوماليات عنكوها هي الشيء ما أنت وحن شعلستي إن كاورستو بوجن أدقرتي سلان عربي بوجن قرمة هندستي قرم مصاب حي أديك أول بحين كوبا نجسي دونا تينا إنه كذا كذا في الصومالي channel ما مريش شقالة ويدكم هذا علينا يا صدق سيسن بوجاس مدان كهولنا حطي بير أو لبعض سنة عجينا يسا ويوقت كاتي ورورنتيسو ويو ووقت هرولة تاني كان محكي ورورني سواء الناس اللي يقانو تاريخ الدوسكا وندت كويل كعبة هي مال لقت حراعة ملها مركان نبه هي أو تاريخ السلام عدن كقراي أو هي ninkaas aniga iyo rag kaleba uu loo diiday aakhirkana uu la dhintay marka waqti dheer jiitan dheer baa runtii yahay ma intan in ka badan baan yaan doonay inaan qoro oo dabeetana intii markii aan arkay xaaladdu halkay taagan tahay waxaan haysan umar ama yaad la dhimanine horta intaan uu qor ha laakiin salaan gabayadiisii marka shan qaybood laga dhigo qayb ahaan yaan qoray marka laakiin wali علم بارستي يو رادنتي يو وكتيرة ها مركز كوبا هذا ولا هذا طلعوا علك تشوشة إن وحط الماما يبوجني على هذا العضي ومركا ودق بياجا إيو أبوان ده يدك برمجيدة ده أون بلوا هذا يكسنشر النبضينته مركا شيء كذا طلعوا علك تشوشة محي كترجميسي شيء كعانه هو الصومالي ده كل بيت تاريخها يو لا سقطها يتقان وحي هاي دجال بعي قبل كان تقدر ومركا صلاة ندق مديس هيد يلا ببيرود إسكهوري مادين بيلا بدا بيرود لو دجال هراء أما قبض هراء أيها لحمرين طبعا أدنى ما أنت دبي وده حد لنا وحيد هذي والقوم أين بالقلم ولا بقوليه أنكو بالان هلا يسقول لا ها marka dhaqan baa bariga hore jiray waxa la oran jiray waa la is ootay la is oodashada waxa weeye qolo waliba maatadeeda iyo caruurteeda iyo dumarkeeda iyo xoolaha waxaba goobta la keenaya oo baa lagu soo wareejinaya si aan ninku meel dambe oo u carara aan jirin qolada kale way soo oodanaysa marka qoladii xoog roonaata waxaba ha isku darsado maatada iyo xoolaha hadii aan muruqba loo haynin أما أنا فعصر قبيل مالك رأيه، مركا قبيل كات كذا، أيه واحد اسكو درسناي، مركا اللي يسقطي دجال كي اللي يري وكما دمبيستي، أيه دتك كلاه على بدأ بيولاد هاين، يعني ورد عند حكم، بس أنا جدي بقى حساب أبو شيء، وده دون شريحة حاج حسن فقيه وشيخ بشير أبوبيها، أيه جدي ده جدي بيكاه، وده كي جدي تطبع عشرة هي كل حشرين. دين بدن بقلا هدلي وقرد كبا الله هدلي ولا وانيي آد بالله الله هدلي الله قص لما دي قروا حرادين
maanta kala noqon mayno dabeedna waxaa la tilmaamaa in sheekhi 2 ragcadood sunno ah gudidii tujiyey oo war malaa nafa baxayeen uslenahay badbaadiye ilaahayna aanu toobad keeno ee kuwana ka ay weynayeen taas kaga tago waxa la sheegay marka salaam baa ku yiri sheekh xasanow diinta garan maayaan af yaqaaniin ma kula hadlaa markaasuu yiri haayo haddaad maanta kala dareeriso kitaabka waxaan kuugu hayaa ajar iyo xasanaad badan aad ka helaysaa salaam markaasuu geeraarkaas markaa magaciisa la yihahdaa tolow colka jooja ayaa dhextaal u ahay waxaa la tilmaamaa geeraarkii siduu u waday oo labada qoloba mar u tagayo oo waayatus iyo waana badan siinayo in labadii abaaduulo quri meesha kusoo hadheen ayaa taarikhda la wariyahay labadii cole kalena isdhex galeen dadkuna marka horeba dee 2 reer oo walaalaa bay ahaayeen xad farax iyo daay farax baa la oran jiray 2 reer oo walaalaa bay ahaayeen daay farax way waa walaalo 2 reer oo walaalaa oo da xididnimo jirto in maamta jiro marka waa isdhex gala iyana waxba kala ahaynba طبعا ها waliba dadkuna dee sidani ma ka koobnaayo waa ka yaraayo shaydaanku baa ka adeegayay waa la isdhex galay marka sheeko caan ah oo Soomaalida marka nabadda iyo laga hadlayo suugaanta iyo hadii jeer la soo qaato ayay noqotay salaana magac buu meelaha marka dhalinyaro abu ahaayo aad baa magaciisu markaa u faafay colaadiina Ilaahay baa shimbir uga dhigay oo halkaasay isku taagtay oo wax dambe oo dagaal oo weyn labadii reer ma dhaxmarin iska unda waxyaabo yar mooyaan dagaal weyn oo dambe ma dhaxmarin halkii isku taagtay quraanti ajarkii uu sheekhu sheegay geeraarkii labadii col markay ku kala joogsadeen bal gabaygaasi sidoo u dhacayay Yuusufow iminka waxaad moodaa in colaad bal loo adeegsado gabayadii oo sanadahan dambe website-ada iyo TV-yada iyo la isu mariyo marka runtii horta ragga hore ragaadaya way yar yihiin ma wadan karno cid gaaraysa ma jirto bal gabayga colaada lagu kala joojiyay ee talow colka jooja maanta loo baahan yahay bal wax nooga tibaax badan buu ka galayay labada reer de isaguna kama fogeyn oo cid ahaan kama fogeyn marka wuxuu xusuusinayay haddii iyagu ay isdilaan dhibaatada ka dhalan karta isaga iyo reerkooda oo labada qoloba wax ka tirsanayay inuu isaguna dagaalka soo galayo in yani hogatus badan oo dadkii markaa joogay dee ay garanayeen dadkii markaa joogay wuxuu ka hadlayay garanay dabeetana nin walba caqli celin waxa la yidhahdo wuu caqli celiyay wuxuu yidhi sidii awr calaasoobay oo caawin dayrta ku qooqay oo dhibidii ku cilaantay oo mid kale u caranaya awrtu marka guga ay qooqaan ee geela ku jiraan way iscunaan way islaayaan labadiina tan cuure isu coobaridaya cod yar baan u lahaa maalintii Cumar Daahir isu laayay cayaartiyo nin caloola cad joogay oo meegaag ciidan war qaatay oo colkii beeyo oga intaasba waa goobo dhacay oo hore reer isku laayeen oo la garanayo dee ciribta reebtay waxay ka dhashay colkii beeyo oga waa cibaaro qabaayo balaayo curufkeeda iyo ciribteeda dambeetiyo cunsurteeda yaqaano caqiibu taliyaay kala cawdi bilaysto oo wartalo dalka jooja hadal weyn dadkan dee meesha taagan way garanayaan marka goobaha dhacay nin habeena casheeyay inuu caafiyadiisa cabaar meel la fadhiisto cindigaanay galayno cimrigeed balawaa laadu marka ladnaanta ma xijiyo cimrigeed balawaayo ceeryaanaan had lahayn iyo ciirunba isugu toosto waa calaamad iblays carabkan ku hadlaayana nin caleentii cadaati iyo cali reeralaya loo iscufaayo golaayo cararaya hadhow iyo caamadaan garanayn kala cawdi bilaysto wartalo colka jooja ciidna way isu qabtaan cidna way isu xigtaan haddii ay iscuntaana idin caabudan mayno naga laftayadu waa ceel qabnaa buu leeyahay oo shantii ceerigay tiiliyo curadkii habartay iyo califiil ma ilaawin aniga laftayda rag baa laga laayayo maalintii curcurood iyo cariskii hugufeed iyo callana waa isugay oo jaamicii calmanaayo codkar noogu dambeeyay iyo rab jaambaaba cayaar iyo caada dhaaf iyo been iyo caynkii ah ku disheenan caday loo jabinin rag buu tirsanayaa marka isagoo raaskiisa oo labada qolya laayeen labada qolaba marka wuxuu leeyahay marka aan kaga qabanayna kala cawdi bilaysto wartalo colka jooja intii baa cantarteeno cuukada ay dul marteeno
ciriidii gubankii cashigu reerka ku laayiyo maydkiina camiraaye candhadheerta dhurwaa iyo haadu ciidda ku jiidiyo cuqdadkii ka baxdeenoo cosobkii balambaali iyo caleentii karamaan iyo dhulka meesha curboon iyo cayn baa soo gursateenoo cambartii geela dhalaysa iyo adhaa ceegan guryahayo codcodkaa sidataan iyo caddiintaa wadataan iyo caani baydan cudhaayo carfigaa nabadaane kala cabdibilaysto warta ka joojiya yani waa ladnaateen oo ladnaantii baa markaa waa Soomaalidu waxa ku maamaadaa dadka colaada abaarta intuu xajiyo barwaaqada ma xajiyo ha waa caado in iska leedahay ha bilaad waleeya ladnaanta ma xajiyo ladnaanta iyo nibcadu uunka way wada lugaysaa marka wuxuu leeyahay nabcada saas u kingeynayso xajin la adhiine kala cabdibilaysta marka ciisku rumoobe curar weynay dhintaan cirshiga tala gaadhaan la iscanaanan karaynayo caqdad baa ku wadaanay casho dhow waxa joogiyaan cawaaqibka eegno garar ku dheeraayo waxaan ka soo qaatay intii ugu cuslayd aad bay u cuslayd marka waxa la yiraahdaa sidoo u marinay faras cad buu fushnaaba leeyo sidoo gaarka u marinayay ee marba raabe u dhaqaaqayay ya labadii abaanduulo quri soo haray labadeen wasaal kala tuqantuqyo waa mid roob meel dhaqan wala kala jeedin awaan dalka isku taagtay dadka taariikhda la wariyaayo laga wariyaayo aad baa dabeetana loogu mahad celiyo loogu farxayo loo hambaliyeeyo loo yacni maqranaysa marka talo halka jooja waa geeraarka soo hadii jir waxa loo soo qaataa marka suugaanta iyo laga hadlayo iyo nabadaynta dadka way jiraan rag badan oo kale iyaguna saas oo kale u dhaxgalo gabyaay way jiraan marka waa rag hadii jir la soo qaato runtii suugaanta Soomaalida ninba ninkii ka horeeyay way ka cuslayd kuwa hadda jira badanaana marka gabay culayskiisa ama miisaankiisa ama taariikh dhaqday oo qiimo lahayd laga sheekeynayo waxa la soo qaataa Salaan Carribay Cali Dhuux iyo Qamaan Bulxan nimankii kale miyay ku jiraan buugan iyo gabayada isdhaafsan jireen badan oo kale la xilli bay ahaayeen waa qarniga inta la xusuusan yahay raggii suugaanta Soomaalida sida wacan siyaasadka iyo tiirarka ugu sameeyay xeerarka u dhigay ayay ahaayeen way badnaan Faarax Nuur Cabdi Gahayr Qamaan Bulxan Cali Dhuux Cali Jaamac Xaabil reega ugaas oo ka sii horeeyay way Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan ladka xilligii ah qolada ka sii horeeyay way ha rag badan bay ahaayeen rag isku qadraawi oo ku daray article page ku daray buugga ayaa hadalkiisa wax ku jirtay waxay ahaayeen rag kala dhalasho laakiin isku dhaqana rag kala dhalasho laakiin isku dhaqana ha marka hadiya jeer marka dee taariikh qoraalka dhowr nooc baa wax loo qoraa marka waxa la qoraa gabyaagii hore waa la xushaayo nin walba tixaa ugu wanaagsan baa buug la isugu geeyaa marka nin gaar ah baad wax ka qoraysaa oo taariikhdiisii ururinaysa qoraysaa marka Salaan way jiraan gabayo ay soo galayaan rag ay isu jawaabeen waa ku soo daray buugga laakiin inta badan isagoon baan ku ekaayo taariikhdiisii aan ka qoray marka Cali Dhuux iyo Qabaan iyo commander wala yaaba meel inay gabayada qaar ka soo galaan meel isu yar jawaabeen iyo meel waayo dadkii gubo kale way ku wada jireen oo Cali Dhuux bilaabay Qabaan iyo Salaan rag isu jawaabayay way kamid ahaayeen marka meel baan taariikhdu iska soo galaysa aad baa loo xiiseeyaa ay isu jawaabayeen runtii 20 sano ayaad u dhul jiifeynaysa buuggan oo waqtiisii oo dhan waad haysaa bal waxa aad nooga warantaa taariikhii uu caanka ka ahaa iyo haabaha uu ka geystay gabayada kuwii ugu cuslaa buuggan mid nooga soo qabo gabayo maraaxil badan buu ka gabayay Salaan laana maxaa yeelay waqti dheer buu noolaa markaan taariikhdiisa dib u raacay 1850 inuu dhashay ayaan ku qiyaasnay anoo waliba xiganayay nin Ingiriis oo wax ka qoray iyo nin Carab ah oo isna wax ka qoray labadaba xiganayay 1943 ayuu dhintay 100 sano dhow ayuu noolaa marka de maraaxil badan oo kala duwan buu ka gabiyay oo nolosha dhinacyadeeda oo dhan leh intii dambe aakhiro iyo diinta iyo qiyaamaha ayuu ka gabiyay marka markuu weynaaday waa yeelay ha markuu waa yeelay marka tix baan soo qaadi doonaa diiniyaho runtii aad uga waramaysa maraaxilka dambeeya iyo qiyaamaha iyo waayaha iyo alla iyo xisaabta iyo ka waramaysa nin la yiraahdo Cabdullaahi Baashe oo ay isku reer ahaayeen buu yuu la hadlayay laakiin wuu dhaafiyay gabayga markii dambe wuxuu ka waramayay xaalad aad u muhiim ah marka wuxuu ka hadlayaa Carabaha dadkii kibray iyo umamkii hore meelaha shay ku dambeeyay ka waramaya aan ka soo qaaday inta ugu muhiimsan wuxuu leeyahay Caad iyo Samuud iyo Kancaan cadawiyadii diinta Cantar bin Shidaad iyo kuwii coofka kor u taagay calaaqa la suuray reer Imaan
cadho daraaddeeda casho keliya baa reer fircoon wishla caariday cirshigaa nabruud lagaga riday colaanu dhaadayne caqlow dhime cooj binu culuq ciidda lagu xooriye cuqdad ee beheen geliyey wuxuu cudud lahaa xoogay cabdulla xasanna waxaa soo casilay caarshe iyo giiba cirkaa lagaga soo degay markay caraysu taageenay raggii dunida curiyo gursaday laga carrowsiiyey cadad male rijaal ladan intay calal ku duubeene ay ciidan meel loo qodqoday kaga caraabeene aan camalkii mooye qabriga cid uga yeedhin allahu akbar marka laydii kala dhaqaaqaad iyo xabaasha camalkaagiiba soo hadhay cid kale isku soo hadhi maysa haddii se caarifiinta iyo nin raga laga cisoonayo cashadii rasuulkii dhintay calayhi salaatu wasalaam ee cudurka loo keenay cilmi kama waramin waa baryo laga ciqaabnaaye ninkii cabase ogi ee bawow toobad celiyaaye camo nin akhristayna jeer dambe ku cimro qaata cankabuudka caaradu xidhay ee lagu cayaarayo iyo wiil cartiisii qaba oo kibir la ceeriyoomay cindallaahi waa siman yihiin waana laba cayne dadkuna waa carabi ama waa cajabi camo iyo khaas ee cuqlal waalideynka iyo kufrigan wada cashaynaya in caddaan khalqiga loo xukumi cudurku waa mooge haddiise ciise soo dego nasrigu waa cadceed subax ciyoonbahata laysugu dhawaa camalkii suulkii iyo carcaraafka maantay tahay ee caadil la hor joogo maantay xaq lama caasiyo ee la carba miisaanka ninba culuq ku laasimay markii laga cashuurayo nin kastoo caniidaba markay tala ku ceeriyoonto marka dhididka cagaha ka tegi cunaha kuu gaadho ifkanimaad u cabatay yaad marun ciidan ka heshaaye camalkaaga mooye halkaan hiil casaba joog iyagoo carshaan qaba intuu caraqna maasheeyey alif maanta cuddu caam haddaan cidi jawaab siinin shaydaanka laga cawdsado ee carare yaasiinka iyo wax cadaabka lagu waariya gaal cadigsaday rasuulkii carshiga loo ballaqay calayhi salatu wasalaam carashigii leylka isagaa cibaadada anfaca caadilka hortiye ciskii maxamed loo soo rogay yaynu cuskan doonaaye nin ciroobay oo coomira oo kuu cawdaan aha ee cadaabkii allow naga xoree caadil baa tahay amiin tixihiisa qiimaha badan ee ka warramaya diinka tixahani waa markii uu weynaaday ee uu ka yaabay adduunyadii bal yuusufow markii uu dhallinyarada ahaa dhallinyarada markuu ahaa inta badan noloshii xilligaa jirtay noloshii anafada iyo qabaa'ilka ku dhisnayd ayay ahayd oo nin waliba wuxuu ahaa reerkiisa afhayeen walow isagu uu dhul maray oo maraakiibta raacay oo simaa noqday oo yurub iyo carabaha iyo africa iyo dhul badan buu maray markaad akrido gabayadiisa afaf badan yaa kaaga hor imanaya xataa af xabash baa kaa hor imanaya oo gasab waxay ku kala iibsadaan ingiriis iyo waa iskaga badan yihiinba gasab waxay ku kala iibsadaan shayba ganacdi gasab waa lacagta waa etoobiyaan gasab waa lacagta etoobiya ha wuxuu onayaa qaar darun baa gabaanada u sida biic gurguradii iyo gasab waxay ku kala iibsadaan shayba ganacdi waa etoobiyaan waxaa kaa hor imanaya hindi lanjeridan qabo barbaar ladani waa moog lanjeri waa dhibaatada waa hindi baa lagu yiri waxaa kaa hor imanaya talyaani gaadhidan sari lahaa gaadhi lowyada faransiisna maa dhowta mid bay sheegayo saturwaaba gaaladu kuma safaadaan bu saturwaaba marka afaf carabiga iyo ingiriisda iyada hadalkooda badda waa aad bay ugu badan yihiin marka dhul mar buu ahaayo afaf badan yaa gabayadiisa ku jiray marka xilliga anafada ee gubada iyo ay soconayeen nin waliba reerkiisa uu difaacayay ayaa iyadoo gabaya gooshaash iyo haadaaqsi iyo gabayada ah walow isagu marka gabayadiisa la akriyo intooda badani ay u badan yihiin gabayo iska waaya ka warankaa iyo ama aakhiro ama adduunyada ama hawaalo waranka waxa la yihahdo ay ku badan yihiin oo qabaa'ilku gabayada ka hadlaya aanay ku badnayn xaqiiqada marka la eego iyo xididkii oo ay dhowr jeer isku yar dhacdhaceen oo iyagana uu kaga hadlayo iyo meelahaasi u badan yihiin marka aan isku dayo mid kale oo isna gabay kaloo caana oo la yihahdo lukansio uu mar labaad buu guursaday isagoo markaas imaankii ka yimi oo yar waa yeelayna iyo gabadh kale guursaday gabadh hore oo cawadhow la yihahdo markii hore qabay oo carruurta u dhashay dabeetana gabadh kale oo la yihahdo dakeeya ayuu guursaday markuu soo degay dabeetana waxaa la yidhi muddo markuu qabay waxaa la yidhi qoladii dakeeye ka dhalatay yaa soo socdoo yarad baa lagaa doonaya dabeetana qoladiibu gabay ka horgeynaya gabadhan dambe wey gabadha dambe dakeeya ayuu guursaday ayuu gabay markaa qoladii soo socotay ayuu gabay cid u farayaa leeyahay xaaladiisu ka warramaya iyo isna wuxuu ka filaya ay la gola imanayaan iyo wuxuu siin doono iyo in guurkii hore yarad badan iyo xoolo badani uu bixiyey laakiin imikana aanu ku masuugayn haddii yarad la weydiisto awoodiisa ahaa
wuxuu ihi lukaasi gabay faaraxow laakiin ma lahayne laflafka iyo laqwiga loo tirshiyo jaray lurkiisiiye la'da xarafka laanka iyo ba'da yaan loo yar ku ahaaye nin awowgii loo xugu dhigay oo liil gashaan ahaaye lecture faranji niman ba akhriya laawjiya beene oo weliba laasimay intay libis ku moodaane ase waxaan u laaqimahaya taxay ku luuqshaane mar hadduu lilaahida ka baxo waa lisaan jaban runtii baalka hadduu runta iyo xaqa ka baydho been kusoo xerogeli runna maxaan ku idhaahday ayuu isagu diidayay taas kusoo horjeeday nin labaatan buuxsamay iyo adduun waa lagdamayaane haddaan anigu loo fari iqiin haatan lawlabaya nin ciradu lamaanaha dhigtay oo laylyan baan ahaye 6 baan dul maray waana la hubaaye lubigaygu leel xalay ma ladin laadadiya taahe lafta dhabar laxaadkay dabcay laafyihii gacanta waa taa laleemada indhaha araggu liitaaye hadday laguhu ciidamin jireen laaste orodka iyo liiqliiqad baan ahay sidii lula dabayleed xaaladiis u sawiraya ma la xiibto geelana hashii lahaanta jiila waa af soomaaliga aan yar macneeyo ma la xiibto geelana hashii lahaanta jiila la xiibku waa kalgacal laakiin geela ama xoolaha ayuu ku saabsan dadka kalgacal eraygan isticmaala kala xiiba kala xiiba baan leeyahay iyo laabta xunshada marka erayga bilaadan dadkana waxa loo isticmaalaa kalgacal xoolahana waxa loo isticmaalaa la xiib waa hasha marka loo yeedhiyo xerada raarteeda ka soo kacda ee dabeetana lagu leeyahay soo baxday halkay doonto istaagtay halla marka la lisayo dhangad baa lagu soo kiciyaa oo nirgaha ay cunaysaa oo hadhowkay kaa tuuraysaa oo waa dhib badanta halena xerada dhexdeeda ku maalaysa oo halka doontaad geynaysa waxa la yiraahdaa waa la xiib marka wuxuu leeyahay hashaasi haddii jiilaal xumay ku dhaco ay cunto xumaysato oo biyo xumaysato oo dee diif iyadoo ay ka muuqato gugii la xiib noqon mayso anna wuxuu leeyahay saasoo kale aan horaa xoogaygii xoolahaygi u tageen ma la xiibta geelaba hashii lahanta jiilaale ku laabudan shisheeyana ninkii la xawsi moodaaye hadba waxaan la xaadbiday rag baa laastay yaradki iyo labxan maayo caawana haddaa lisi tidhahdaan inkastoo waxay hore u tageen haddaa caawana ay weydiisaan tamartayda waan keenaya lalamaane xadhig loo tidcay yay lugi ka doogtaaye lufan baa ka hadha dawliskii liil sabaan jiray nin labooda sheegtana samaan la ahriyaa helaya haddaan luqunta beri taagi jiray licday adhaxda waayuu ka warramaya nin yaraan ku loo faray lumiye raacdee ka lahabiye ladqaba waa eg tahay inaad lafaysaaye laqantuuyo xidid tii horaan laabta ku hayaaye iminkaan larkii weli qabaa laqanyadeedii halkaa horaa hawl badan iga soo gaadhay iminkaan larkii rag laacdamaya lool iyo rogaag leexada isgoysay bawdada ma laasimo darmaan leeda fuulih iyo laanjeeridaan qabo barbaar ladani waa moogay haddaydan lamaa awr la wadin ama ligood keenin leegleegsadaha waa nebca laanta dheer sidee warseedu ay ugu soo lugoyn laasha waa ceeb waa ka horgeynaya marka dhaqan baa jiray oo raggiina xagga xididkana xaggana dhibaad iyo dee waxbaa ka iman jira xididka marka ama inanta u tagto ama ayaa wax la keeni jiray marka wuxuu leeyahay dee gacmo isdhaafay dhexdooda ee galladi ka dhalataaye waa kaa adigu yimaado oo nin la yaalay markaa oo reerahii wada yaalleena yaa nooga warramay yidhi anigu waan yaraa laakiin geelii markii la dhahaa salaam baa yarad laga kaxaynaya geeli waa nala soo agmariyay oo anoo yaro kurayo geel la jooga yaa nala soo agmariyay karaankiisii uu siiyey geel yaradkii uu bixiyey buu yidhi waxaan maqlay markii uu badaha joogay inuu gabayo aada u fara badan soo tiriyey oo waraaqa iyo wax la isugu soo diray ma garanaye ee uu dalka soo gaari jiray kuwaa miyaad wax ka haysaa horta waneen ku sheegay oo waneen kuli 5 meelood marka laga dhigo meel ahaan wuxuu sii qoray marka gabayo badan oo imika ninkaa dhintay uu imarin jiray oo numay baa jiray oo runtii kuwa uu dabada joogay kuwa xataa wuxuu jimarinayay maalin qolyo doomahan qolyo dara wallahi naaquda leh dadka doomaha ka xeeya ayaa yiri noo gabay gabayga uu mariyay oo waa iska madadaalanayaan iyagu base fahmi waaye base aan fahmayna kala noogu celi markaasuu warta naaquday uu gabi jiray marka gabayo badan oo uu cadan iyo Yurub iyo East Africa xataa Lord Dalabin ninkii la oran jiray markii uu raacay halka ka tagay gabayo badan oo uu tiriyay baa jiro oo laakiin aan dadkii hayay ay la dhinteen oo aanan ururintii helin waayo dad wax qorameynaan ahayn dad wax xafida bay ahaayeen dadkiina intii laga soo gaaray waaba yaraayeen sidaas abad adigu ku dadaashay oo ma sha Allah aad waxoogaa ka haysaa waxyaabaha uu caanka ku ahaa markaad wareysatay maxaa kamid ahaa wallahi salaan dadkii xilliga joogay oo jaamac Umar Ciise
oday la yihahdo oo taariikhda daraawiishta iyo taariikhaha kale Soomaalida aad u qora oo imika Djibouti degan oo aad loo yaqaan ayaa isaguna qoraal ku daray buugga marka wuxuu ka sheekeynaya dhaqankiisii iyo marka aad buu uga sheekeynaya wuxuu leeyahay in markuu cadan yimaado laga haybadaysto oo gaafafka iyo meelaha la isku arka markuu yimaado loo kaco la soo dhaweeyo la tixgeliyo oo xikamkiisa iyo gabayadiisa lagu tixgeliyo oo sharaftiisa iyo magaciisa ilaashada ayuu ahaa nin kale oo oday oo isaguna raggii soo gaaray wuxuu iga sheekeeyay inuu ahaa nin xagga cibaadada iyo diinta aad ugu fiican way gabayadiisa ka muuqataa ilaahay geeraar leeyahay waxa kamid ahaa ilaahay baaniyaal cadawdiin oo caabudaya wataanta iyo basaasa عشان أو قيبية نمنا أنكو عريرينه أدون كو عمد جايو كو عبادة فلا يو عمريجي بقول جاريو عندي عاد لقى سارو سيد عوشة بجوكت إلا يورو هذا دعاء عطسنا يو عرب أولية تورتي عينات ذكية كحاجة الدين تنين أقوام في عن أوله أيوها مركا كل بقى نين سجى حاجة الحلة هذا ويدقن كي حلة جات شري أيها دقن حشود يكو صليسان يو ما بها سلام أقوله دقن كي حلة جات شري ayaa ku salaysnaa inuu waliba magaciisa sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaaliyo tareerkiisa ilaaliyo tawaalidkiisa qoyskiisa ilaaliyo marka kulliba waxyaabaha uu caanka ku ahaa marka laga yimaado suugaanta waxyaabaha kala kamid ah inuu samatalis ahayo tan marka ka hadlaynayba ay kamid ahay wax badan oo saas ah ayaa runtii waayo waxaan arkay nin kale oo isaguna buug qoro carab ah oo 1964 ka qoray buug uu bixiyay darasatul adab fi Soomaal isaguna saas oo kale ayuu uga sheekeeyay ساسو كوجا كيني بوغان aad qortay abwaano caan ah oo dadku ugu wada jeclaayay wax ku darsaday miyay jiraan labada nin baan ka qoray qoraal ay sheegay hadraawi iyo odaga abjaam waxay ka warameen marka hadraawi iyo sheeko noocee bay ku darsadeen waxay ku darsadeen aqoontii suugaanada ay u leeyihiin kulliba marka qofka suugaantiisa ku soo gaadho waad qiimeyn karaysaa oo suugaantu waxay ka turjuntaa qofka shakhsiyadiisa iyo wuxuu ahaa mabdiisa baad garanaysaa xishoodkiisa baad garanaysaa waayo afgabaadsigiisa iyo sarbeebtiisa ka muuqanaysaa marka aqoonta ay maadaama may soo gaadhin laakiin waana niman waayeelo oo runtii labada niman waayeela marka aqoontii iyo shakhsiyadiisa iyo suugaantiisa iyo intii ay ka qiimeyn karayeen ayay لا أبوان كشخصية دي سوقاتي سالقة دحكرتها. سالقة دحكرتها. إما كأوجامع وكله أوجامع عيسى وكل كان بيت كله هدي ما أنت اللي هذا حاجة قبيقة افتح لماذا هي حكمة ده يا الله السمي حيد وحن أرى لها سلام عربي وأنك جهرية أوجامع عمر عيسى رأيك شخص قابو عبرية وقان معها صومالي ورانا يسون كاسو جهرية وقيمين ما شفت له قيمة يو لورانا يو هبل بقى جهرية قبيقة صومالي ده إذا كنت عبرية رأيك شخص يا أقوم تقولها marka iyaguna nin waliba arti wuxuu ku darsaday qoraal kaga hadlayo runtii marka buug la qorayo ma aha wax sahlan dib badan baa laga maraa ka caawiyo buugan qoritaankiisa taasi malaa buug kala u baahan lahayd haddaan saa khasar dhibta iga soo martay been sheegi maayo buug kale u baahan lahayd aad u badan ayay iga soo martay laba marxaladood oo dib badan bay soo maray ururinta marxalad dib badan bay soo martay waayo ninkaan sheegay la dhintay ilaa 13 sano meelaha san daba socday waxaan daba galay 1990 yaan isbaranay 2013 baan 2003 baan ka haray xilliyadas aan dhintay Ilaahay naxariisto waana ka waayay waxba 13 ka sano hal tix kamaan helin ururinta markaa dib badan yaa iga soo gashay waxaan garanayaa gabay aan ceeri gaaba afar eray ka helay burcana in ka helay hargeysana in ka helay dadana isu keekay aan garanaya marka horta xagga ururinta dhibaato aad u badan yaa iga soo gaadhay markii dambana waxa iga soo gaadhay taariikhdaba qori daabacaadi yaa iyana dhib badan iga soo gaadhay halka rag jooga waxa waa daabacayna way suurto gali weyday Canada nin jooga yiri soo waa daabacaya way suurto gali weyday London wala joogto kula meel baa tii waa daabacayna way suurto gali weyday Talyaaniga jooga ayaa waa daabacaya ninkaas daabacay jaamac nin la yiraahdo oo quraana buugtana daabaca runtii kaalin wanaagsan kaga jira xagga qoraalka ayaa daabacay markii dambe dabeedna waxaan ku yiri waxba kharajana ka sugi maayee horta buugaas uu ifka inuu arko aniga iga xado sax yaan doonaya dabeedna saasu ku daabacay imika daabacada hore waaba iska yar tahay waxaan doonaa mar dambe la daabaco xataa sawir baan helay nin iga soo diray la dhano salaam carabi sawirkiisa oo buug 1800 iyo waxoogaa la qoray Ingiriis ku qoray
geeska Afrika laga qoray sawir ku yaalo oo nidii soo diray oo aan tusay dabeetana raggii soo gaaray salaan oo ay xaqiijiyeen inuu yahay marka ku waxyaabaha iyo waxyaabo kale oo sixitaan damba si wanaagsan daabacada lagu soo daray gabayada buugan ku jira kulli way fara badan yihiin had nooga soo qaban kartaa gabayada horta inta waa soo qabtay gabayada kale aan soo qaban karaa waxaa kamid ah markuu dhalinyarada ahaa gabadh buu doonay la yiraahdo Cawa Dhooble gabadh baa yarad lagu xiray yaradkii uu geeyay dabeetana odaygii inanta dhalay Dhooble wuxuu yiri yaradkii waan gartay faras baan doonay faraska abtiga baale ma haysto salaade abtigi baa faras haysta waay waa faras caana waay faraska asadka inta mooyaane gabadha ku siimay abtigi buu tagay abtigi waxa la oran jiray Xuseen Johorad abtigi buu ku yiri gabadh baan doono faraskaaga kala yaga xir faraska waxa la yiraahdaa wagan xilay abtigi wuxuu ku yiri abti de farasku waxba ma aha reer col baan gabadha ka doon mushkiladaas ka weyn ma kale faraskuna xilliga wuxuu ka dhigay tiknikada nimanka lagu dagaal galo abti marka faraskayga in kale ay soo fuulo de dooni maayo nimanka waa soo hayna labada qolada waa abtiga iyo qolada inta ka doonayaan labadaba waa suuq labadaba waa bixanta hadana culba ka dhaxeeyo waa laba jirbo laakiin de ishaya marka qolana marka waxay degan tahay boohod leeyahay qolana la ascaano deeriyo wuxuu raabti de faraska waa xusin lahaa ciladaas jirta marka nimaanu sahayno de faraskayga siin maayo wax kale weydii daabta maxaa wax kale weydiiya faraskaagaas gabadha ku xidhanta faraska bixin maayo waliba waxa markii dambe odayga abtigu waa soo yarheemaye raggii kale yaa shiray oo de faras walban waa la yaqaaniyo nin kale raggii kale shiray markii la ogaaday la yiri salaam muxuu socdaayo abtigu faraska soo doonay waa shir la galayba dadna waxa la yiri salaano arinta faraska iyada suura galay faraska waa laga soo duulay abada waa lagu dilay waxa de loo calmaday ninkaas ku weydiistay iyo qaba faraski markuu halka istaagay iyo dabeetana gabaytir ma abtigi kula hadlay wanaag male Xuseen oo adoon la isku waala Xuseen Johor waa abtigi haddaad farasku inuu weyn yahay iyo hel dad moodaysi galaba waraabuhu dilay ama la waaya waxa cudurro waysaga dhinta oo fureen malag wacdi sabana xoolaha kulba weyd ku jibiya adoo warawariye qaylata miigogan xiloo haysta oo weerar dhacay baa nin kale waliga fuula kubu yiri galay geedu hadiya ururka waayeelka waglajeeda lagu weeciyo warasiyo xiimay hal bariiqa lagu weeciyo wadana xiima markaasay wuxuushti iyo cunaan haad loo waray walaaqtan direed kubtay way hadoololeyso ragis wada wajiiriya rogaal waramada dhiigle isagoo wajaqay meel xun buu garad gooyaa markaasuu walaa rag u noqdaa weerar la laha waji gacalku way isugu qabtaa shay kasto wacan wala isku qura haddaan walaxdu gurigeena iman kuma wareershin wax ku siiyaya iyo xagga igu waraysaaba waa un wadiyaha shay aduu lagu wayeegaay kolaba waari maayo abto warisa la raacsan faraskaas bay iga xigay way waxay wariyaan dadka taariikhda ka warrama faraski loo diidiyo in markiiba qayla soo dhacday oo fardihii lagu yaacay oo soo faraskii oo hurda in dhalinyaraha ku booday dabeetana faraska naxdintii markuu hanqaday garka wadna qoay waa guhaankii qarba ka sheekayo dabeetana waa ka faraskii waa isagoo wuxuu yiri waa kan le isagoo wajaqay meel baa wagarad gooyay hal bariiqa lagu weeciyo wadana xiima markaasay wuxuushtii cunaan hada loo waray faraski saasuu ku dabay saasay yiraahdaan dabeetana nin kale oo loo jeeyo jaamac liibaan oo isku reerahaayeen oo faras wanaagsan lahaa ayuu faras u doontay oo ninkii baa faraskii ka kaxaystay oo sidii buu gabadhii ku guursaday oo gabadha aad buu jeclaa markii dambana mala maray sir qabtee qoliyo reerahooda baa dhex galay oo yiri war nimanka waa saysaanay ha u tagi dabeetana gabay shaalkii magaalada qoftii aad sharafka moodaysay shooqa qalbigu way ruxmayahay sheexina hay celinina buu leeyahay gabadha aad buu jeclaa Cawa Dhooble shaki male aynama ina shiri aan oo noole kol hadda naf sharadeed gashaa shirib yar dhaafayna marka adigu markaas guurkiisii halkaas soo dabeetana raas weyn bay noqoto gabadh dabeetana carruur badan iyo de takfiirta imika ka dhaqaniba faraskii saahadi ku saas faraskii la saas faraskala waxa la gadayaa nabadiis runtii wuxuu ahaa gabay qiimo leh
ها مرحلة أتكي مرحلة أتكي gabadhii aad doonaysay gabadhii uu ninku jeclaa marka lagu xidhay marka dii gaari lagu xidho oo dabeetana gaariga madaxweynaha lagu raayay keen oo nin gabadh ka doonto ku dhaw ku siinaya gaariga madaxweynaha la kaalay madaxweynaha jabhad u dhurjibay jabhad ka soo jeeday isku yihiin de suurta kale maysa gaariga waa qabad adag de ha marka laakiin ka gudub iyo ilaahay u sahal ka gudub ha waxa tibaaxday inaad wali doonayso inaad sii ururiso ha yaad rajo ka qabtaa inaad ka soo hesho taariikh caynkaas dadkii wax yarba ka noole wallahi rajo badan oo saacsa ma qabo waayo xilliga aan ku soo dhex jiray way ugu filan tahay waa arnimadan u leeyahay dadkii waxayay wax badan kama noola waayo waxaan xasuustaa sawirka maanta aan sheegay markii la dhiibay nin salaan uu yahay halkan joogaan tusay wuxuu ugu yiri sawirkaas waa weeyay laakiin nin burcad jooga ayaa de ay wada sheekaysan jireen oo si wacan u garanaya ninkaas sawirka wala tag burcaan tagay nin baan weydiiyo ku odagay hebel iyo tilmaan ninka way ugu qoslay dabeetana waxaan ku maxaa dhacay wuxuu weey gadhow baa maas kaasoo quraan ma dhowr jeer ay ugu dhacday qof aan doonayay oo la igu weey gadhow baa maas laana maxaa yeelay dadka taariikhda haya waa 80 90 100 waa de xilli cimri weey waa cimri marka rajo badan ma qaban laakiin haddana haddii marka wax iska baarbaadho kulli waxba iska soo baxbaxa eraya ka maqnaa oo gabay ka dhinaa baad helaysaa waxaad helaysaa taariikhda wax ka maqnaa waxaad helaysaa waxyaabo aad iska soo baxbaxaya marka kulli rajo ma rajalay rajo badan ma qabo runtii wax fiican baad samaysay Yuusuf taariikhna kuugu filan sida kuwii ugu dambeeyay shalan oo asna loo leeyahay abwaana waxa jira hadda kale oo qiimo badan kuwaasi intay nool yihiin ma ku tala jirtaa inaad buugaanka reebtid والله طبعا horta dhowr buug baa xataa ay qabiyo ahaa buug kale oo sheekooyin isna way qabiyo nin kale oo anigu inta badan raggii hore yaan xiiseeyay oo ragga nool dhalinyaro badan oo qoraay oo tilmaamay baadaan u tilmaama hataa shalay daraadin baa yimaanay oo tilmaamay waraada ragga nool waana idin fududiyeen waxyaabo ka xirmo uu sheegaya halka anagu waanu baadi doon iyo waayo gabay baa oday afar mar ku sheegaya oday kale u tagaysaa wuxuu oray afarta mar ku sheegay waxba kama jiraan kaas ana ayay dhageyso dabeetana afar kaloo khaldan isla ku sheegay mid kale u tagaysaa qoonay labada midkoodna waxba kama haye gabaygaana haya waxaad ku dhex jiraysaa maanta ba isku turturka laakiin ninku markuu nool yahay kelmad walba wad weydiinaysaa uu ka jahil saaray ka dhalinyarada ragga nool imanka aanu tilmaamo anigu ragga hore ayaan jecelahay inta badan awoodda saaraa waxa saasalan dad ka gudubto ragga horena kulliba qaar baa ku saameynayo oo aad xiisa ku yeelanaya marka nin kale oo leeyahay qabaan bulxan baan isna jecelahay inaan isagana wax ka qoro oo runtii balance ku daydayo inaan wax ka ururiyo hadday suurto gashaan salaan ka gudbo balan isagana ku xajiyo ha marka waa iska jaanis oo hadda dhib badnaatay laakiin waxaan isku dayaynaa inta nool lahay sidii wixii hore u lumeen inaanu nagu ka sii tagno raad ka tagno si wanaagsan insha Allah hadii aan helno anaguna bal waanu akhriyo doonaa waana nu gudbin doonaa inta aan ogeyn baan u sii gudbin doonaa waqtigii waxaad moodaa inuu gabagaba yahay maxaad gudbin lahayd maanta fursadda ka faa'iideysanay waxaan gudbin lahaa Somali Channel waan TV-da daawadu ka mid yahay waliba TV-yo xagga diiniga aba ayaa u badan tihiin runtii laakiin fariinta gudbin lahaa waxa weeye waqti fidmaynu joognaayo iska burbur dagaalo sharku badan yahay marka saxaafadda waxaan oon lahaa intii karaankiina isku dayaa inaan xagga samaha waayo in war la raadiyo wax kasta la baahiyaa muhiim ah islaamna waynu nahay oo wax badan oo fidmada kicinaya in la asturo ayaa fiican marka Somali Channel iyo saxaafadda kala guud ahaanba waxaan kula dardaarmi lahaa saxaafaddu waqtigan iyana way cabanaysaa iyadana waa laga cabanaya labadaba way jiraan marka barorta caabitaanka saxaafadda laga cabanaya inay horta iyadu saxdo oo waxyaabaha mashaakilka ah ay ka taxadiraan waliba TV-yada iyo idaacaduhu way dhowdhow yihiin cabatigu xagga qoraalka ku badan yihiin ama website-yada ama jaraa'idiyada qoraalka ku badan yihiin marka waxaan doon lahaa oo aan ku dardaarmi lahaa in kaalinta bulshada ugu jirtaan kaalin weyn baa ugu jirtaan xilkasnimadeeda ku dartaan oo muujisaan oo in badan salaan wuxuu ka tagay dhaxal qoraal ah oo diinta ku salaysan waxa jira abwaano yar yar oo dhalinyaro ah ka soo baxay Soomaalida waxa ku maamaadaan nin waliba intuu leegiyo laanka booda maamaha saasa way iga maqan tahay abwaanada yar yar maxaad oran lahayd iminka gabayada
horta xilligan suugaanta waxaad moodaa dee wax kala ciriiriyay oo sidii berigii hore dadku ugu dhagan nuglaa ama loo dhagaysan jiray ama loo faafin jiray xilligan hoos bay uga yar dhacday oo waqtigii maaha waxyaabo kale imika dadka ku mashquulsan yahay oo meelaheedii buuxiyey oo warbaahinta kamid ah oo sport baa dhalinyarada ku oo siyaasad iyo qaad baa lagu mashquulsan yahay waxaa laga yaabaa halkii murtida berigii hore laga danayn jiray ereyga macnaha le la rogrogi jiray la isu gudbin jiray inaanay waqtigii aanu ahayn laakiin waxay u baahan tahay mar waliba samir bay u baahan tahay in la samro abwaanada dhalinyarada waxay u baahan yihiin inay horta marka hore aqoontii gudbinayaan iyagu yeeshaan oo dhaqankoodii iyo hidahoodii wax badan ka ogaadaan dabeetana marka ay bulshada u gudbiyaan waana hibo oo nin waliba wadada u jeexanaya isagay u taala waa hibo ilaahay bixiyo waana wax xaraya ha nin waliba abwaan waliba wada u jeexdaa laakiin mar walba waxaa muhiima in samatar isla noqdo oo gabaygaagu akhriya adduunya waa mid ummadda anfacaya oo mid ama cid la safan ama cid ka safan ama siyaasadda yare bilaa micnaha imika dadka lagu mashquuliyey mawduucan yare dadkii oo dhan loo dhiibay guri walba lagaga sheekaynayo aan meel alaale meel u gaadhayaana jirin dadkii lagu dawaqiyey kaa in laga koro oo ummaddu kaa ka korto oo ummadda aad waxaad u sheegaysaa wax kale oo dee diin baa jirto oo dhaqan baa jirto nolol baa jirto waayo-aragnimo baa jirto wax badan baa jirte in ummadda wax kale loo soo gudbiyo ayaan kula talin lahaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa yuusuf shaacir oo aan kula kulannay magaalada Hargeysa runtiina aanan kusoo koobi karin taariikhda uu hayo iyo bugaagta iyo dhaqanka iyo gabayga uu ururiyay saacad iyo 2 toona insha Allah waxaan ku kulmi doonaa taa iyo mid lamida waa teamka Somali Channel ee magaalada Hargeysa iyo aniga iyo Yuusuf Shaacir oo idin le sidaa iyo nabadgelyo